السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيدا ومحمد عبد جمعالي يري اوفيشالي يعني كهدلايا يوتيوب channel كده. ما انتو هاي يوتيوب channel كمارتيو ويل سوماليت او دلنيره ودن كان كينيا ولا شيء بس انا dareenkiisa guud muujinayo oo rabo inuu maanta ka hadlo dowladda Soomaaliya waa dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre asoo wadanka u dhalanin laakiin dareenkii Soomaalinimo iyo dhiigii jiray iyo rabo hadana dareenkiisa guud inuu ka hadlo iyo waxyaalaha ay wadanku soo qabteen marka hore magaca saddexaad bilaabo kuna soo dhawo channelkeeda ما شاء الله والله سنتهي محمد جمعالي رأدي أبدأ ضمن سنتهي مقعيقة وحسن ديرية برا أو سدحن مركا وأنا كله وهاي waxaa inoo sheegtaa dareenka guud oo ku soo jiitay oo inaad ka hadashid maanta dowladda Soomaaliya iyo systemka ku shaqeyso دريك جود سوجي تيماتا وحواي محمد وساد وقت هيو سومالي وقت بدن هي خربنت المان هاني مركي سومالي هذا بربك وكل عهي كدبنا ضد بدن بعد سومري أما أهين بدن بعد كده على جلاشن وملحوينيان أما كملجار يحور بيلهد لكن ما أنت مقام كإمارس أما أن ليه هي ملحوين محمد عبد الله فرماجو يرئيس الوزراء حسن على خيره ماشي ما أنت إيه جارسيين رجوين بيليه هاي أيام سليه أنا متى يقول لسي ولي ميديا هم سوفر السنة كمان هالدين ما دام أقول سومالي الآن هاي ويدي بيسو سومالي وحدي بعي أنا بقول يدي ولي متى ينهد سومالي حريقة حتى يقول لسي سومالي وحكي مالي عرفته أنا نقول لي متى لكن هم جيجا أدى يوجع لي إنه يسمته وحي هذا كل بيعني يقولي وحي صومالي كان كله صومالي ومتكو وحي كله هم جروه كله قد قاضي ومعناها أنا فيه ما دام الصومالي قبيل ولد دقي لكن أنا هذا قف قبيل هو شقي مئه أما فكرة داس ما قبيل إنه هو شقيه وحنجعلها إنه هو شقيه من نانتا صومالي burburkii Soomaaliya kadib 91 wadamo madaxweynayaal fara badan oo wadanka soo mareen waxa kamid ah Cabdullaahi Yuusuf Cabdiqaasim Xasan Salaas Shariif Sheekh Maxamed iyo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamed ugu dambeeyay marka Farmaajo iyo Kheyre maxay isleedahay way kaga dugan yihiin madaxweynayaashaas ama madaxdii hore wadanka soo martay Farmaajo iyo Kheyre waxay kaga duwan yihiin oo ii muuqata ama aan leeyahay maanta Soomaaliya way ku soo noqotay habi kulli dad macnaha aniga ahaantayda waxay la tahay maanta inay noon muuqato inay meeqaamka Soomaali oo soo noqday sida hadda military oo kale sida military oo kale waxa jirtay Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaarihi oo soo magacaabay uu horeeyay way Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa saacadan oo gabagabada oo doorashadii ay soo gashay ya maanta inta dhaxdooda waxa masaray ra'iisul wasaare oo kale oo lagu bedelay ma ay jirto maadaama dadka ka horeeyay ama madaxda ka horeysay خلاف بدن سوق اللي حكي جرو يتبدل جرين وحنا خلاف كم جرو سومالي ما أنت ودمه هرب بقول ترتم حيان فودنا ولا قليل لا هاي نك خلافه أما إنه خلاف هاي لو ما لا يسكع علينا يعني إن متكلم كان عقول هدي ما أنت لو يدين لا حسن على الغير يو فرماجو أو مدحبينها ودنك maxaa wadanka nidaamha ay ku soo kordhinaa dawladda maxaa lagu soo kordhiyay shakhsiyan ay ku soo kordhin doonaan ama ay ku soo kordhiyeen hadii lagu codsado adii laga codsado maxay ku soo kordhin maxaa jeclaan lagu soo kordhiyo wadanka oo lagu soo daro ma sha Allah wax badan bay horta ku soo kordhiyeen anigoo man dhihin hadda ay lagu soo kordhin lahaa wixii aan dhaliilihii aan qabil hayo dhanbo hor bay u kaafiyeen midda aan sida aan qabo wax dhaliil oo aan maanta dhankooda aan ka qabo ما يجرتو أنت أصلا هذا هذا أي معارض هاي الأولوه لو جري مركا أنا وحدي لها أنت أما أنت يا شو أما أنا إيه مقطع دولة ما نسوق عرضنا مركا ما قاعد عليك هذا هذا ما أنا قف كان يعني أنا هاي غد أنت جو لكن صومالي أنا أدو تغير سنة هاي دولة بانور دلته وحدي لها نقول بمركيز وصاقله وما الله إلهي وقرأ حفر صدق ومركو أسجع صاقله Soomaali waxa ka qabto hadda waxaan leeyahay aniga ama aan jeclaan lahaa
ayadoon qayli ka dhicin maba yeelay Soomaali baan bixiyeen ma ogi hal loogu daro inaan xataa la tartamin Xasan Cali Khayri iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa ka waraysan ma garanay Soomaali meel badan waxaa jirta dawladda gacanta ugu jiran maamulkeeda ay gacanta ku hayeen oo gacanteeda ay ka baxsan tahay dad badan ay ku dhaliilayeen dawladda inay ka seexatay amniga sugidda amnigooda iyo maxaa la jiray adeega ay dawladahan ama deegaanahan ay u lahayn inay haysaneen dadka maxaa dhihi lahayd way jirtaa in badan oo xorriyad way jirtaa in badan oo hadda maqan way jirtaa laakiin waxaa jirto wax markii aan lagu haysanin oo u madax bannaan tahay oo lugaha lagugu jirin waan isgaranaynaa Soomaali baana laakiin adigoo lugaha lagu haysto sida horta wax walba uma dhameystiri kartid cadow fara badan bay yeesheen in cadowga ay ka hortagi lahayn ama wadanka haystay ama ay la geli lahayn oo la gaarinbo lugaha la qabtay marka waxay noqotay inta iska fiirin inta iska fiirin wixii wadan hadda saasha hadalka uga meel joogo waxa Soomaalida isweydiinayaan dad isweydiinaya wadanka Soomaaliya wuxuu haystaa ciidan ku filan ciidamo fara badan baa loo soo tababaray wadanka Turkiga wadamada kale loo soo tababaray wadankan Kenya kamid ah waxaa jira ciidamo United Nations oo AU ay soo wadanka keenan ayadoo dadka ciidanka wadanka ku sugan yahay dadka waxay qabaan wadamada qaar adeeg ay siiraan loo sameyn karo laakiin oo haddana duruuf iyo dhaliilo jiraan duruuf jiraan macnaha awgood macnaha loo hakinayo maxaa isleedahay dadka waa adeega wala gaarsiin karaa si loo gaarsiin karaa isleedahay waa la gaarsiin karaa mid kale to waxaan u sheegi dawladda kale hadda ama dadka shisheeyaha ee wadanka u joogo dalka gaar bay kale yihiin oo hadda waxay u qaban hayaan ma jirto wax cadow ay ka kaafin hayaan ma laha sida Amazon oo kale dana gaar bay joogtaa meeshan faa'iido bay ku haystaan ma wax ilaahay unta oo Soomaali hadda ku tarhayaan ama ilayhin kala u tar ma jirto wadanka shisheeye dadka shisheeyaha intuu joogana wax ilaahay unta horumar oo la gaarayo ma jirto maadaama ayna u gaarin Soomaali inay iska bixiso oo ayada kaligeed ay iska xafiso ayada kaligeed ay iska xafiso maadaama ayna gaarin marka aan waxaan ku soo koobi lahaa ama aan dhihi lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Khayre mahad celin bay leeyihiin ilaahay baa mahad u sugnaato iskale laakiin mahad celin bay leeyihiin meeqaamka maanta Soomaali ama qaabka u egtahay ama say isku muuqato markii laga reebo qabiil fulaan iyo iska jijeeti iska jira wax walba waxaa jirta hadda media markaad gasho inta badan waa media waan fiirsadaa dad far badan oo dawladda cuno sidii daahir cali soo kale meesha aan gaarin haddii haddaan fursad ku siiyo ku dhac Farmaajo iyo Khayre ayaa codkada dhageysan doona maxaa ay u soo jeedinayaan ma ka codsan lahayd Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Khayre Xasan Cali Khayre waxaan u sheegi lahaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wadankana wax badan baad ka qabateen sida hadda noo muuqato qof walba caqabad buu leeyahay dhag bilka u siinina dadkiinana soo jiita ama sidaad kula shaqeyn lahaydeen hadduu macaarad yahay inagu mudan la dhashay oo wiil Soomaaliyeed oo kale kullee wax kale baa u muuqda inaad ku qancisaan isku daya inagoo deganaan ama xasilin muujinaysaan inay isku dayaan inay qofku wuxuu dhali lahayo ay ka samata bixiyaan ayadoon dagaal ama lagu qaadin ama dhibaato kale aan loo geysanin inaad madaxdiina aad ku samartaan waxa la rabaa maxaa nin door ahaad ku xartaa marka qofka markuu madax yahay dhibaatooyin caqabadooyin badan buu la kulmay qof walba media u soo fariisan oo aan wax ka sheegi waxa soo dhaba dhag bilha u siinina ku dulqaata ay walba qofka madaxa diiyo meel la geysto waa lacaan wax walba dhan buu la kulmay caqabadooyin oo dhan baa istaagi marka waxaan leeyahay dhag bilha u siinina hor oo socda wadanka horumariya Soomaali ku nool iyo qurbaha ku nool maxaa soo jeedin leedo tale waqtigan uu nahaya waxaan dhihi lahaa qof walba oo madax ah meel joogo ama Soomaali ah qabiil ka fogaado hana fiiri fursadda maanta aan haysano
ilaahay baan ku dhaaran aniga maxaa aan qaba maanta ama niyadeyda ku jiro waxaan qabaa labada nin haddii waddanka loo daayo oo shib laga dhaho Soomaali inay Soomaalinimadeeda ku soo noqonayso aad bay maqashaa Soomaali inay Soomaalinimadeeda hore ay ku soo noqonayso waa fahansamoo libaaxa Afrika Soomaali inay noqon ma ahayn America iyo meelaha kale iyo waddan kale ay la tartami doonto Soomaali oo qowid ay yeelanayso Soomaalida aad bay u inkaaran tahay Soomaalida waa dad firfircoon Soomaalida waa dad baxan firfircoonadeeda ayada la isku dhexeliyo ayada la isku kadeeday ma maraysid ee isku haysataa marka waxaan leeyahay macaaradkana la soo dhaweeyo maxafidkana labada meelba xagga gacmo wada jir ay wax ku gooyaan baa leeyahay macaaradka laftiisa waxaan baaqa u jeedinayaa Soomaali waa mid laba yaan laga dhigin qabiil hal iska dhaafo laba nin hadda madaxdu waa laba nin waddanka madax ka soo noqotay waa labadii madaxweyne u dambeysay Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay waddankii aad shalay dhisayseen horna aad u sii wadaan ma dib ha u celinina ma kasta ama dhalinyarada dhibaatooyin aan loo geysanin marka waxa lagu eedeeyaa inta badan madaxda intay dadka isku diraan baa waxa la dhahay eega ka dhex baxaan guriyay wadamo kale shisheeye ay ku leeyihiin way iska tagaanba meesha ku soo haray ma kasta baa ku soo haray dadka baa isku horgeyn dhalinyarta baa guriga xabad isla dhici ayaga ma dhimanayaan xagga ka taagan intii la waraaqa laga dhex bixi waxaan leeyahay Soomaali walaaq maanta oo ma baahno meel fiican bay maraysaa xaaladeeda dadka xilka hayana loogu kaadiyo watanteen Soomaali marka baaqa waxaan u jeedinayaa macaaradka qabiil uu nareeba Soomaali lug buu ka gooyay qabiil hal iska daayo wada jir ay gacmaha ama wax ku gooyaan baa leeyahay marka waxaan leeyahay Soomaali hore u socoto dib yaan loo celinin